السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمان تعالكنا عند كسر قبل دونا برنامج كوبن أو كوس صابسن معاونة دق هاي أو كوس صابسن أبارها كسر يريد دجانا دبرك Gobolka Togdheer كاسي هاي دخلتي فوليش خير قاتي دوال كاسي قيبسي دقيقة بيا إيا عنتي سويتشرا أو قيبسي تكتب على السن يكون دجانا عقفتا دجانا ذكلا تولوي كلا ودولو يكون تحسين حدود كيتوبيا سمع لا وداعن مامور هاي دخلتي فوليش مامور Gobolka Togdheer ayaa arrinkaasi si wadajir ah wada hadlay oo deeqda ay ku gudoomiyeen maamulka gobolka Togdheer ku gudoomiyay maamulka hay'adda Khadija Foundation sida soo socota halkan ku xusan آمين jidka toogiyo wadaxda dalaalimo dadka abiyo hooyo wax idin dhibaba inaan ilaahay tusin barakadii nabi maxamed sallallahu alayhi magacayga waxa la farxaan ibraahim bakar halkan maanta waxaanu joognaa duruqsi gaar ahaan halka dadka IDB-ga ama dadka barakacayaasha ay degan yihiin oo leehda cagafta waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Khadija Foundation oo codsigayagii iyo baaqii aan u diray dadkana haraad iyo wax laan haysay markii aan u diray isla markiiba si degdeg ah uga soo jawaabay waxaanu leenahay aad iyo aad baa mahadsantiin ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay idinka iyo cidii kala la kaashateen ba khayr ha idin siiyo dadkiiniba wax tarteen dadkiiniba baahan baa u gargaarteen waa noo dhagan ugu shin ilaahay ha idin dhagan uglaado dhowr jeer hore dadkan caawisana wax u keenteen mar iyo laba toon ahayn waxa kala la mahadnaqayaa oo iyaguna baaqa nala diray qolada maamulka gobolka Togdheer uu ka mid horeeyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo Maayir Muraad iyaguna aad iyo aad bay hawsha xanoogala qabteen oo ay nala xoojiyeen baaqa in dadkan wax la siiyo waa dad baahan aad baa u mahadsantiin waxaanu leenahay Khadija Foundation iyo cidii kale ay la kaashanaysaba walaalayaal ilaahay ha idin barakeeye hana ilaawada dadkaas intay cabba xool helayaan wax soo baxayaan hal la ogaado waxa la siiyo aad baa u salaamintii الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم مؤسسة دار السيدة الخديجة للأيتام نشكر جميع من ساهم في هذه العطاء لهؤلاء المحتاجين باسم الإغاثة العاجلة الذي أغثنا اللي طلبنا منكم واستعجلتوا في معاونتهم فهذا شيء جميل ونشكر من ساهم فيه. وصلنا إلى المكان هذا 250 عائلة لهم راشن كامل من سكر ودقيق ورز وحليب وزيت و10 10 سيارات مياه عشان نوزعهم في كل بيت في المجمع اللي في الحوض اللي عملوه. وشكرا تسلموا بارك الله فيكم والله يعطيكم ويبارك لكم فيما ilaahay barakadii rasuulka ha siiyo آمين aamin barakadii rasuulka ugu ducay ومس عشاد بيلا إذن alla inta horeeyay markaasaan lacagtina naga go'o markaasaan waxaan biyo ku dira weyn markaasaan baraashin weyn markaasaan walaayinaad gacalayo hooyaha oo baqtinahay dadka qaarkii la isku dhex jira طفل تسابقت الهموم إليه تجري دموع اليتم في خديه تتلعثم الكلمات في فمه وترى حياة البؤس في عينيه آلم وفقر حاله ودموع